ترجمة نلشي الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. maanta in sha allah waxaan xoogaa dul istaagaynaa kitaabka aan akhrisanayno ee allumac, xoogaa inaan ogaano xaqiiqadiisa iyo qiimaha uu leeyahay. kitaabkan waa kitaab sidaan shalay soo tilmaanay muddo 1000 sano ku dhow muqarar ah oo la dhiganayo. inta badan kitaabka la qoro ee casri loo qoro, casrigaasi ka ku xiga ama kuwa ku dhow, haddii uu muqarar ahaado kadib waa la bedelaa oo kitaab kaloo ka bedelan oo waqtigaa dambe munaasib u ah ayaa la keenaa oo la dhigaa. kitaabku marka inuu muddo fara badan baaqi noqdo waxay tusinaysaa ahamiyadda uu leeyahay iyo sida uu munaasibka u yahay mar walba. kitaabka allumac ahamiyaddiisa waxyaalo badan baa tusinaya. arrinka koowaad waa kitaab mukhtasar ah oo alfaadiisu ay kooban tahay. iyadoo alfaadiisu ay kooban tahay ayuu haddana maqaasid badan oo muhiim ah sheekhu ku soo aruuriyey. mukhtasar inuu yahay sheekhu isaga laftirkiisa sheegay oo muqadimadiisa wuxuu ku leeyahay mukhtasarun fi lmadhabi fi usuuli lfiqhi. waa kitaab mukhtasara oo usuul fiqiga lagu soo ikhtisaariyey, weliba calaa madhabi alimaam shaafici ayuu ku soconaya. halkaana waxaad ka fahmaysaa kutubta usuulku madaahibta inay ku kala duwan tahay. kutub madaahibta ka dhaxaysaana way jirtaaho cilmu lusuul almuqaaran kutubta laga qoray weeyaan oo tabsira ay ka mid tahay. kitaabkan marka waa mukhtasar, uu kooban yahay, sidaas daraaddeed ayuu diraasada saalix ugu yahay. isagoo mukhtasara haddana sheekhu wuxuu leeyahy fiihi ishaaratun ila alkhilaafi wamaa laa budda minhu min addaliil. waxaa ku jira khilaafka in la ishaaro iyo daliilka intii daruuriga ahayd. tabsirada oo kale sheekhu sida uu ku socdaa waxay tahay masalada inuu sheego aqwaasha ku jirta, mukhaalifiinta adiladoodii, daliilka qowlka raajixa ama madhabka qowlkiisa, ictiraadaadkooda in laga jawaabo iyo adiladooda in la ictiraado. waxyaalahaasoo dhan buu tabsirada uga hadlaa. amaa kitaabkan sheekhu aqwaasha si kooban ayuu u sheegi doonaa. qowl walbana daliilkiisa ma sheegayo ee qowlka raajixa ama madhabka qowlkiisa ayuu daliilkiisa sheegayaa. kitaabkan miisaadkiisa waxaa ka mid ah annahu sahlu lcibaara. waa kitaab alfaadiisu ay sahlan tahay, cibaaradiisu ay sahlan tahay. marka loo fiiriyo kutubtii casriga la qoray, culummada waaweyn ay qoreen, iyo cusuurtii ka dambaysay ilaa waqtigeennaan la soo gaaro, oo kutubtu laba ayay u qaybsamaysaa. kitaabna waa mutawal, kitaabna waa mukhtasar. labada qaybood mid walboo ka mid ah kutub alfaadeeda iyo tarkiibkeedu uu adag yahay iyo kuwa tarkiibkooda uu sahlan yahay ayay u qaybsamayaan. kutubta abu isxaaq cumuuman ama mutawal ha noqoto ama mukhtasaraad ha noqoto, cibaaradiisu way sahlan tahay. hadal aan dhib badnayn ayuu ku hadlayaa oo alqaasta aan u ekayn. marka kitaabkan inuu mukhtasar yahay oo uu kooban yahay, maqaasid badanna uu kulminayo, alfaadiisuna ay sahlan tahay. waxaa kaloo kitaabkan ahamiyaddiisa tusinaya inuu yahay alimaam abu isxaaq ashiraazi kitaab uu qoray, oo kitaabka la qoro marar badan qiimihiisa waxaa lagu ogaadaa cidda qortay. alimaam abu isxaaqna usuululfiqhiga marka la yidhaahdo iyo cilmuuljadal iyo cilmulfiqhi imaam buu ku ahaa, oo culummadiisii iyo dadkii la sina ayaa u qiray intii uu noolaa. waxaa la yidhaahdaa alimaam almaawardi oo dhintay 450. alimaam abutayib atabari ayay isku sanad dhinteen oo sheekhii shiiraazi aha sidaan soo marnay.
ayaa maalin meel kula kulmay abu isxaaq culama isugu timid abu isxaaq ayaa marka hadlo masaa'il cilmiya ka hadlay markaas buu wuxuu yidhi maawardi abu isxaaq oo kale ma aanan arkin walow ra'aahu shaaficiyu latajamala bihi alimaamu shaafici hadduu arki lahaa waa ku faani lahaa yuri ninkan inuu madhabkiisii ku abteysanayo cilmigaas iyo luuqadda wanaagsanna uu ku hadlayo marka imaamkii sidaa ahaa kitaab uu qoray inuu yahay qiimo gaara ayay u yeelaysaa kitaabkan waxaa kaloo qiimihiisa tusinaya kutubtii sheekhu uu qoray kuwa ugu dambeeyey inuu ka mid yahay oo kitaabka u horeeya marar badan sheekha aaraadiisa wax badan baa iska bedela muctamad ma noqdo laakiin kitaabka u dambeeya ama kuwa u dambeeya ku jira wuu ka qiimo badan yahay kuwii horeeyey kitaabkan waa kitaab sheekhu uu ugu talagalay masaa'il mujaradana inuusan ku sheegin khilaaf badan iyo hadal badanna inuusan ku sheegin labadaas ayuu u dhaxeeyaa kitaabkan marka waxaa la yidhaahdaa yurabbi almalakata alusuuliya cinda aalib ardagu haddii alfaad oo mujarada oo keliya uu akhristo sida waraqaadka oo kale iyo wixii la mid ah malaka ma helayo yacni inuu usuulkii fahmo xaqaa'iqdiisa oo masaa-ishu ay si fiican u dhaadhacdo taas wuxuu ogaanayaa khilaafkii qayb ka mida markuu arko adiladii qayb ka midana markuu arko sidoo kale ardayga haddii lagu bilaabo kitaab muwasaca oo khilaafkiisu badanya oo adiladiisu badan tahay wuu ku wareeraya kitaabkan marka meel dhexe weeyaan oo waraqaadkiina wuu ka mustawa sarreeyaa maalan tabsirada iyo alburhaan liljuwayni iyo kuwaana ma gaarsiisna kitaabkan miisaadkiisa waxaa ka mid a masaa-isha iyo mabaaxifta cilmiga usuulka in badan ayuu jamcinayaa oo kutubta isaga la siman aysan jamcinayn laga bilaabo bidaayada iyo muqadimaadka ilaa aakhirka laga gaaro bal masaa'il badan oo isaga ku jirta kutub waaweyn kuma jirto sidaan arki doonno insha allahu tacaala cilmi walbana qofku inuu ku dadaalo haykalkiisa guud iyo muxtawihiisa guud inuu ogaado inta uusan tafaasiishiisa iyo jus-iyaadkiisa gelin muhiim weeyaan qofka tadarujka cilmiga ee diraasada laga doonayo inuu ku dadaalo qayb ka mid ah weeyaan sidaa daraaddeed ayay dariiqada culummadu u tahay mukhtasaraadka in la dhigto midba mid xoogaa ka roon kabacdi loo gudbo ilaa marka dambe la gaaro kitaab muwasaca laakiin laguma bilaabo kutubta waaweyn oo waxaa ka dhalanaysa qofku inuusan wixii si fiican u fahamsanayn wuxuu leeyahay alimaam alghazaali mustasfaha muqadimadiisa kullu cilmin laa yastawli الطaalibu fi ibtidaa'i nadarihi calى majaamicihi wa mabaaniih falaa maطmaca lahu fi الdafari biasraarihi wa mabaaqiih cilmi walba oo ardagu diraasada cilmiga uu daraasaynayo bilowgeeda uusan si fiican ula qabsan cilmiga masaa-ishiisa usuusha ah iyo asaasiyaadka uu ku dhisan yahay cilmigaa qofkaasi wax damaca kama qabo inuu gaaro asraartiisa iyo maqaasidiisa cilmiga markaa qofku waa in jumladiisa si guud uu marka hore isugu dayo inuu u fahmo kabacdi uu masaa-ishii si hoose u fahmaya kitaabkani marka ibtidaa'i maxdi ahna ma aha intihaa'ina ma ahan laakiin qofkii soo dhigtay sharxu lwaraqaat lilmaxalli maalan ama kitaabkii aan ku bilowno silsiladan ee gaayat lutfi kitaabkan qaabka weliba haddaan u dhigi doono insha allah munaasib buu u yahay oo wuu la qabsan karaa kitaabka marka ahamiyadiisu way badan tahay walidaalika ayaa culummo badan ay sharxeen oo lagu dadaalay laga bilaabo casrigii sheekhu uu qoray ilaa haddadanoo la joogo culummada sharaxdana waxaa ugu horeeya isla sheekha laftirkiisa sheekha isaga ayaaba sharxay kitaabkiisa sharaxiisuna kuwa kale wuu ka horeeyaa maxaa yeele kitaabkii uu qoray asraartiisa isaga cid uga aqoon badan ma laha sharaxiisaasna ma ahan sharax alfaada iyo
taraakiibta matniga ku dadaalaya laakiin macnaha guud ee kitaabka ayuu sheekhu ku sharxayaa sharaxaasna wuxuu ku yimid sheekhu kitaabka lumaca ayuu tadriisiyey oo darsi uu ku aqriyay marka cilmigii uu darsiga ku sheegay iyo sharaxii uu darsiga ku sheegay ay ardadu ka qoreen sharaxan sidaas buu ku yimid ee ma aha sharax sheekhu meel gooni inta u fariistay isagu uu qasday inuu qoro halka marka dhowr arrimood buu ka faa'iideysaa marka koowaad kitaabkan qaabka la rabo in ardada loogu dhigo ee sheekhu uu arkayay ayaad ka fahmaysaa oo sheekhu isagu ardada markuu u dhigay udhigidii uu u dhigayay waxaa ka soo baxay sharaxiisa marka sharaxiisa xajmiga uu leeyahay waad aragteen oo 2 mujallad weeyaan masalada xoogaa si fiican buu uga hadlaa niqaash badan baa ku jira qaabkaas oo kale in loo dhigto inuu u qasday sheekhu ayaa muuqata waana insha Allah qaabka hadda aan doonayno inaan u dhigano kitaabka maadaama uu yahay sheekha mid laga qoray ee isagu uusan u qasdin inuu qoro cibaarada matniga iyo sharaxu ma kala saara macnaha guud ee matniga hadalka ku yaal inaad ka fahanto maahane kelimadan macnaheedu muxuu yahay sharaxaas ka soo helimaysa waxaa ka mid ah culimada sharaxday kitaabka marka sharaxa sheekhu waa madbuuc 2 mujallad buu ku daabacan yahay daarul gharb alislaami ayaa daabacday dabcadiisuna way qaladaad badan tahay aad bay u khalad badan tahay inta badan qofku uu arkaya sheekha labaad ee sharxay waxa la yiraahdaa Diyaauddin ibn Dirbas Diyaauddin Uthman ibn Isa ibn Dirbas waxa uu dhintay 602 hijriyadu markay ahayd kitaabkan lumaca marka uu sharxay sharaxiisina lama hayo wuxuu kaloo sharxay al-muhaddab في الفقه أولي الإمام أبو إسحاق لفتركيسو وحوكو شرح كتاب الإرادة الاستقصاء كاسبان اللغو يقاناه صاحب الاستقصاء أيا الإرادة استقصاء قاس إن بدن أو كمد هذا والله ياهو مخطوط ويان ولي لما الضابعين وحاكم ذا علماء شرح لي كتاب كان اللمع القاضي مسعود ابن علي ابن مسعود القري العنسي اليمني 604 هجريdu markay ahayd ayuu dhintay wuxuu ku sharaxay kitaabkan kitaab uu bixiyay al-amthal culimadu markay ka hadlayeen waxay yiraahdeen athna alayhi ghalib al-fuqaha fuqaadi ku waqtiga ahaa culimadii waqtigiisa ahayd badankoodu sharaxiisaas way amaaneen طبعا انه هذا waxaan ku soconaa muqaddimaadka sida sheegnay nuskhada uu tahqiijiyay Abdul Qadir al-Khatib al-Hasani laakiin shuruucda aan sheegay badankeedu kuma yaalaan isagu dhowr sharax buu sheegay sharaxa al-Qadi Mas'ud ma aanu sheegin waxa sheegay al-Janadi as-Suluk fi tabaqat al-ulama wal-muluk kitab al-irado ayuu ku yaalaa waxa kaloo sharxay al-Qadi Mas'ud ardagiisa oo la yiraahdo al-faqih Musa ibn Ahmad ibn Yusuf al-Husabi oo isna Yamani ah 621 ayuuna geeriyooday wuxuu leeyahay al-Janadi kitaabkiisa as-Suluk fi tabaqat al-ulama wal-muluk wa sharaha al-lum'a bi sharhihi al-mashhur alladhi ajma'a al-fuqaha annahu lam yakun li ahli al-Yaman fi ash-shuruh ma huwa akthar barakatan minhu wa adhhar naf'an وأزال إشكالا في أصول الفقه منه وعكو شرحي بوليه اللمعة شرح يسمى مشهور كأعانك شرح اسمركا آد بي علماء يمن وجود دالين بوليه هاي مركي حتى مقالو ينكقار وسوق لي حفلة قار عيال لو سميو معموس قار عيال وقابل علماء دي وقت يسجوتنا وحي اسكور راعين بوير إن شرحاس أو كلا رأي يمن أصول الفقه عيسان كقرين kitaabkaas oo kale culimada Yaman inaysan usul fiqiga ka qorin kitaab ka baraka badan oo ka faa'iido badan ma aysan qorin waxa kamida sidoo kale culimada sharaxday الشيخ أحمد بن مقبل بن عثمان oo 630 dhintay wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo sharh mushkil al-luma'
sharxu mushkili lumac marka masaa-isha mushkilka ah ayay muuqataa inuu sharxay. waxaa kaloo ka mid a culummada sharaxday الشheekh محamed بن علي الزaylaci محamed بن علي الزaylaci 730 ayuu dhintay hijridu markay ahayd. lahu sharxun mufiidu cala lumac sharax faa'iide leh ayuu lumaca saaray sida ku taala asuluuk fi طabaqaati اlculamaai wاlmuluk. waxaa kaloo ka mid ah culummada sharaxday oo casrigan joogtay muxaqiquna uu sheegayo محamed yaxya ibn sheekh amaan محamed yaxya ibn sheekh amaan wuxuu leeyahay nuzhat اlmushtaaq fi sharxi اlumaci liabi isxaaq. mar hore ayaa la daabacay dabcad dambena ma laha inta aan ogahay. dabcadiisu marka waa qadiim iyadoo bdf aan internetka waa laga helaya. nuzhat اlmushtaaq fi sharxi اlumaci liabi isxaaq ayaa la yidhaahdaa. sharxiisu marka waa sharax dhammaystiran oo kitaabka inuu wada sharxo ayuu u qasday. marka jumlo walboo ka mida iyo ama fasal walboo ka mida inuu sharxo ayuu isku dayayaa. qofkuna hadduu u laabto faa'iidooyin badan wuu ka helayaa. nuquul badan oo kutubtii kale usuulka uu ka soo naqliyo iyo meelaha qaar isagu uu isku dayo inuu xalliyo. waa sharaxa kaliya ee dhammaystiran ee sharaxa sheekha marka laga soo tago hadda la heli karo. sharaxa kaliya ee dhammaystiran ee sharaxa sheekha marka laga soo gudbo hadda la heli karo weeyaan. waxaa kaloo sharxay محamed yaasiin alfadani almaki kitaab la yihahdo buqyat اlmushtaaq fi sharxi lumaci liabi isxaaq. waana maطbuuca waa mutawafir qaarkiin inay wataan ayaa laga yaabaa. isagu laakiin sharax dhammaystiran ma aha ee waa tacliiqaad ama nukat weeyaan. meelaha qaar ayuu qabanayaa taraakiibta qaar ama masaa-isha qaar oo keliya. sharax dhammaystiran ma aha. alfaada iyo dabdigeeda ayuu ku dadaalay. sidoo kale nuskhooyinkii makhtuudka ahaa ama nuskhooyinkii uu helayay ee lumaca inuu xoogo isku muqaabaleeyo oo alfaada uu saxo ayuu ku dadaalay. waxaa kaloo sharxay sheekh la yidhaahdo axmed sahl alxaajini oo faadaaniga ardaygiisii ah indunuusi ahaa. faadaanigu indunuusi buu ahaa. kitaab la yidhahdo albayaan اlmulamac can alfaadi lumac sida kitaabka sheekhiisa oo kale weeyaan. alfaada ayuu ku dadaalaya inuu tacliiqiyo ee sharax weyn ma ah. shuruucda marka lumacu uu leeyahy way badan yihiin. intaas ayaan hadda ka haynaa. culummo waxaa jira kitaabka allumac ikhtisaariyey iyo culummo nadmiyey labaduba way jiraan. laakiin labada midna lama hayo oo kitaab hadda la leeyahay nadmigii lumaca weeyaan ma hayno. kutubu taraajim laakiin waa lagu arkayaa. addaw laamic uu iska leeyahay alimaam asakhaawi wuxuu sheegayaa rag nadmiyey lumaca abi isxaaq. ikhtisaaraadkiisana waxaa ka mid a mukhtasaru lumac libni lhaa'im. ibnu lhaa'imka faradiga ee macruufka ah ayaa ikhtisaariyey lumaca. kitaabka lumaca haddaan fahamnay sheekhu sida uu u qoray iyo isaga laftirkiisu inuu sharxay iyo shuruucda uu leeyahay. kitaabkan xaggee buu ka yimid asalkiisii? qofku markuu u fiirsado alfaada kitaabkan iyo culummada ciraaqiyiinta ee ku waqtiga ahaa asheekh abu isxaaq ashiraazi meelo badan inay iska shabahaan ayuu arkayaa. culummadaas marka qaarna waa ardadii abu isxaaq waa la fahmi karaa sida maalan ibnu caqiil alxambali kitaab la yidhaahdo alwaadix fi usuul اlfiqi ayuu leeyahay. masaa'il badan oo ay iska waafaqsan yihiin kutubta abi isxaaq bal bialfaadiha ah ayaad ku arkaysaa. sidoo kale alkhatiib albaqdaadi sidaan soo sheegnay alfaqih walmutafaqih abu isxaaq laftirkiisuu ka soo goorinaya. sidoo kale abulwaliid albaaji waa ardadii abu isxaaq ka mid ah isagana masaa'il badan buu ka soo goorinay ama ay iswaafaqsan yihiin. waxaa kaloo jira culummo isku waqti ay ahaayeen abu isxaaq inay ka qaateenna hadda aan la sheegin laakiin kutubta ay qoreen iyo masaa-isha abu isxaaq uu qoray aad ay isu shabahaan. waxaa ka mid ah alqaadi abu yacla alxambali. alqaadi abu yacla alxambali ayaa ka mid a.
ويسوي دين تأفر بقول كنتن يسيدي يجريد مركي هاي وعليه كتاب لي هذا العدة في أصول الفقه ومطبوعة كتاب كان لبقى يوض بوكك وبيا قيب كتاب قونيا نقوكرتو الحدود وبحيي هي قيب مطول لبدا قيبود مد والبو كمده مسائل بدن وحي اسكا وافقسيين بنفس العبارات ابو اسحاق الشيرازي waxaa dhici karta marka inay kala qaateen abu isxaaq inuu ka qaato way dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta hal meel inay ka soo wada qaateen waxaase la hubaa al-imaam abu isxaaq الشيرازي culimada isagu uu ka soo qaatay cilmiga oo uu ka faa'iiday kitaabka markuu qoray iyo kutubta kale usuulkaba inuu ka mid yahay oo ugu horeeyo imaamka usuulka marka la joogo alqaadi haddii la idlaaqaba loola jeedo ee alqaadi abubakar albaqillani القاضي أبو بكر الباقلاني ومرجع أساسي كتب تيسو التقريب والإرشاد كتاب الإرهاد أيوليه هي ولبا التقريب والإرشاد الكبير الصغير أما حتى الأوسط أي الله نسبيا التقريب والإرشاد الصغير نسكيس تقريبا أي هذا طبعا نصفه تقريبا إلى الأخبار باب الأخبار لقى قارو كلام مطبوع ويا انترنت كان ولا جهلية مردونا قطعير أو آخر ككتاب قياس كي ملا كمد أيا جوني لو طابع لكن شرحا صغير كان هيني كي كبير كها دي مركا قف هو فيريو كتاب كباقلان أولي هي يو كتاب كان اللمع يو كتب تكلا أصول كأبو إسحاق وقرسيد التبصرة أو كلا وعارك يا إنه ستوس أو سقاطي شيخا ومسائل شيء يسوافق سيه ومرر بدن هذا الكتاب كقران وحشرح ونقون كره إن الله عبطه كتبت القاضي أبي بكر الباقلاني أبو بكر الباقلاني مرجع أبو هاي أبو إسحاق وكلمة هذا كقاطي القاضي أبو يعلى لفترك يسوي كتبتي يسوي اعتمادي إمام الحرمين لفترك يسوي اعتماده بل وصو اختصاري وكتابك التلخيص في أصول الفقه اللي يراده ومختصر التقريب والإرشاد التقريب والإرشاد أي كسو اختصاري علماء بدل مركا أي آد وفايدي كتبت أبو بكر الباقلاني وحاكلوا على الإمام أبو إسحاق الشيرازي وآد وحقصو قاتي أبو بكر ابن فورك الأشعري رحمه الله أبو بكر ابن فورك وأرضي أبو الحسن الأشعري كمدها أبو بكر الباقلاني بتركسون واصدة وحوليه هي ابن فورك لور كتاب أصول الفقه وحاكم إذا كتاب اللي يراد الحدود في الأصول الحدود في الأصول أو مطبوعة وحكى كم كتاب اللي يراد المختصر في أصول الفقه أما النكت في أصول الفقه مركة قار اللي يراد يسونا مطبوع ويا كتابك ابن فورك أولي هي إيوه مقدمة دا وأبو إسحاق الشيرازي أسمي كتاب كيس الملخص في الجدل الملخص في الجدل انتو سن جدل كجلين وحو سمينيا قيب ووغا هادلايو اصول الفقه ما دام اصول الفقه جدلك ولا حريره اصول الفقه وخلاصه ايو شيغيا من بدايته الى نهايته قيب تاس marka ملخصka usulka uga hadlay wuxuu si toos ah uga soo qaatay ibn Furak markaad muqaabalaysana waad fahmaysaa ibn Furak mukhtasarkiisii oo dhan meeshan inuu ku jiro Abu Isaaq xoogaa masaa'il uu ku daray ama meelaha qaar wax ka bedelo oo kaliya مختصر ابن فورك مركا مطبوع ويان مسائل بدنا وحي اسكا وافقسيين لمع على لفتركيسا وتقسيمات كمسائل شئيو تعريفات كإيو وحيالا بدنا وكمده مختصر كا إيو لمع ويس وافقسيين ابن فورك نوى متقدم وبيهقي شيخي سويان أفر بقلي وحير عيون دلتان فيليا أما كور بوادي الله أعلم مركا لوضع هدين مدوكا كلاكا قاتي أبو إسحاق باسو قاتي كتاب كان مركا وجرا كتبتا ابن فورك وحي كمتا مراجع لوغو لابا كرو مركا لدونيو كتاب كان ابو اسحاق الشيرازي وحكلو جرا قضيه واضحه وكتابك ان بدنان دغانو اصولك ودراستيسا لغو بلابو الورقات في اصول الفقه ورقاتك iyo lumaca qofka markuu isla aqriyo wuxuu arkayaa marar badan inay iswaafaqsan ورقات كسيدة مشهور كأمريكا وحلون نسبيا إمام الحرمين
abulmacaali aljuwayni saaxib alburhaan ayaa loo nisbeeyaa nisbadaasina ma sugna oo culimmadii hore sharaxday ee ugu horeeyo alfirkaax taajuddiin alfazaari markuu sharxayo kitaabka wuxuu leeyahay almansuubi liimaami alxaramayn kitaabka loo nisbeeyo imaam alxaramayn sidaasoo kale ibnu imaam alkaamili iyo culimo badan oo sharaxday way tashkiikinayaan yani waa loo nisbeeya laakiin kuma cadda culimmadii hore ee u tarjamaysay imaam alxaramayn ama noloshiisii ka sheekaysana ma aysan u sheegin kitaab alwarqaad inuu isagu qoray ciddii u horeysay ee jismisay inuu isagu qoray inta anigu aan arkay waa taajiddiin asubki tabaqaat alkubra marka qofku uu kitaabka aqriyo waraqaadka kitaabkan lumacana uu aqriyana wuxuu fahmayaa xiriir inuu ka dhexeeyo oo ugu yaraan kitaabka waraqaadku culimmadii baqdaad inay qoreen khuraasaaniyiin inaysan qorin oo imaam alxaramayn iyo ghazaali iyo culimmadii la midka ahaa usluubka ay wax u qoraan iyo usluubka waraqaadku aad bay u kala fog yihiin laakiin usluubka waraqaadku uu qoran yahay iyo usluubka abu isxaaq ashiraazi uu kutubtiisa u qoray iyo culimmadii la mideed waa isleeyihiin masaa-isha kitaabka ku qoran alfaadeeda marka la fiiriyo bialfaadiha waxaad ka helaysaa kutubta abi isxaaq lumaca ayaad ka helaysaa tacriifaadka iyo masaa'il badan iyo taqsiimaadkoodii lumaca ayay ku yaalaan baynamaa aadan ka helayn kutubta uu qoray imaamu alxaramayn sida alburhaan oo kale ama xataa kutubtii burhaanka iyo wixii la mid ah laga soo ikhtisaaray sida almanhuul lilghazaali oo kale iyo wixii la mid ah bal taa waxaaba sii dheer waraqaadka masaa'il badan oo ku taalla imaamu alxaramayn ma qabo oo isaga si kale ayuu u rajaxaa masaa'il badan oo la isku khilaafo ayaa jirta oo culimmadu ay ku kala ra'yi duwan yihiin usuul fiqiga marka la joogo masaa'il badan oo waraqaadka ku taalla ma qabo imaamu alxaramayn marka kutubtiisa la fiiriyo baynamaa waxaa qaba masaa-ishaas abu isxaaq ashiraazi ayaa isagu rajaxa marka baxi aan sameeyana waa jiraaho muqaarana waraqaadka iyo lumaca waraqaadka iyo kutubta uu qoray abu isxaaq ashiraazi iyo sidoo kale waraqaadka iyo kutubta uu qoray imaam alxaramayn muqaaranadana waxaa khulaasadeedu ay tahay kitaabka haddii aan lalahayn abu isxaaq baa qoray waxay noqonaysaa in la yidhahdo isagaa laga soo qaatay laakiin ma imaan karto marnaba in la yidhahdo imaam alxaramayn ayaa qoray waxyaalaha taa xoojinayna waxaa ka mid a makhtuutaadka waraqaadku uu leeyahay mid ka mid ah waxay u nisbaynaysaa abu isxaaq ashiraazi ayay u nisbaynaysaa qaraa-in badan oo kalena way jiraan marka waxaa la dhihi karaa waraqaadka laftirkiisu mukhtasaraadkii lumaca ayuu dhinac ka soo gelaya marka la fiiriyo muxtawaha ama madmuunka ku jira iyo masaa-isha ku qoran kitaabkan allumac wuxuu leeyahay tabacaad kala duwan makhtuudaad kala duwanna wuu leeyahay tabacaadkiisu aad bay u badan yihiin markii horena waxaa daabacay oo kitaabka caalamka geliyey jamaaluddiin alqaasim sheekhii la oran jiray raximahullah laba makhtuuto oo uu ka helay makhtuutaadkii dimashq yaallay ayuuna ka taxqiijiyey sidaas baa lagu daabacay ka bacdi tabacaadka kale taas bay ka qaateen oo ay ku dhisan yihiin tabacaadka kitaabku way badan yihiin laakiin kulligood tabacaad muxaqaqa oo naskoodu saxan yaha ma wada ah inta anigu aan arkayay tabcada ugu roon ee ugu saxan waa tabcada uu taxqiijiyey cabdulqaadir alkhatiib alxasani ee uu nashriye nidaam yacquubi daarulxadiid alkataani ay daabacday tabcada ugu fiican weeyaan sheekha taxqiijiyana qof iska taxqiijiye kitaabka ma ahane nin usuulka soo dhigay buu ahaa oo kitaabka laftirkiisa dhowr jeer dhigay kitaabka laftirkiisa ayuu dhowr jeer soo dhigay oo soo tadriisiyey kadib buu taxqiijiyey kitaabka la taxqiijinayana taxqiiqu jawdadiisu marar badan waxay u laabanaysaa muxaqiqu aqoonta uu u leeyahay maadada kitaabka uu taxqiijinayo oo hadduu si fiican u fahamsan yahay waxyaalo badan cilmigiisuba ku saxaya laakiin haddii uu isu fiirinayo waxa meeshaan ku qoran waxa meeshaan ku qoran marar badan wuu qaldamaya kitaabka marka nuskhada ugu fiican waa nuskhada iyadoo pdf-na waa la helay internetka ku jirta iyadoo musawar ah tabcadaas weeyaan waa tabcadaas ragga qaarna waxaan filaya waa soo koobiyeysteen waa haysta
طبعاده كحكته وطبعاداس وحا تحقيجي أبو مالك وحا تحقيجي محمود حسين أبو خلف وقدم له أبو مالك كمال السيد سالم وعليه ضبط على 9 نسخ خطية وحا لغو تحقيجي 9 نسخة مخطوطة isaga marka miisadiisu waxay tahay furuuqdii nuskhooyinka ayuu sheegaya yani nuskha heblaayo sidaas baa ku qoran mid heblaayo sidaas baa ku qoran marar badan marka naska waxyaalo ka qaldan isagu midda uu kor saarayo waxa laga yaabaa inay qaldan tahay laakiin tii kale markuu kuu sheego hoos aad ku aragto waad fahmaysaa taas baad ka faa'iidaysaa taa marka waxay noqon kartaa nuskhada labaad haddii la fiiriyo nuskhooyinka uu sheegayo iyo makhtuutaadka uu laabtay tiradooda iyadaa lambar 1 noqon lahayd laakiin xagga ikhtiyaarka iyo naska kor la saarayo middaa hore ayaa ku fiican waana fahamka cilmiga arrin u laabanaya waxaa lambar 3 noqon kara nuskhada uu la socdo sharax faadani buqyatul mushtaaq qaarkiin inay wataan ayaan filaya taas ayaa nuskhada 3 noqon karta meel xooga qaladi way ku jiraan qofkana uu fahmi karo markii la aqrinayo maqtuudaadkiisu kitaabka marka way badan yihiin ninka hadda wuxuu sheegay 9 nusxo inuu u laabtay 9ka mid ka midna waa mutaakhir jiddan oo kitaabka markii la daabacay agteeda ayaaba la qoray 2 nusxo kalena way jiraan oo labadii asaas ahaanba kitaabka laga daabacay Jamaaluddin al-Qasim uu helay ninka muhaqiqa ma uusan helin bixamdillahi ta'ala 9ka sheekh hadda uu sheegayo iyo labadii hore Qaasimi intaba anu waan hayaa 11 nusxo oo makhtuud ah ayaan u hayaa kitaabka lumca marka insha Allah ta'ala naskana inaan saxno oo nuskhooyinka kuwa ugu muhiimsan aan ku muqaabalayno ee aan sharaxno hadii Ilaahay idmo alfaada kitaabka ayuu darsi ku soo doona kitaabku marka waa kitaab hore aan mar u soo marnay haddana qofkii doonaya si sariic ah inuu maro uu heli karo duruusiyo dooban ama culimo kale akhrinaysa waxaad uga talagelaysaa marka masalada la sheegayo inaan ka boganno masalada kitaabka lagu sheegayo qofku inuu ka bogto si fiican iyo dhinacyada ay leedahay iyo fawaa'ida ay leedahay xoogaa qofku uu fahmo waxa marka kitaabka matnigiisa in la soo qaatana way noqonaysaa qofku qalinkiisana uu wato wixii muhiim marka uu ku qorto aniga laftirkeyguna sharax qoran ayaan isku dayaa insha Allah kitaabka inaan u sameeyo oo aan ku soo khulaasayo shuruuxdii hore iyo masaa'il kutubta kale usulka maraajicda badan hadii alfaadiisa xalligeeda ay tahay hadii masaa'isha iyo guud ahaan sharaxooda ay tahay sharaxa marka isagoo qoran ayaa la soo diri doonaa insha Allah oo lagu soo dirayaa qanaadka duruusta la soo dhigo asbuuca soo socdo kale midalan intii la qaadan lahaa ayaa la soo dhigaya waxaana inoogu horeyn doona mas'ala usuliya oo muctaad aysan ahayn kutubta usulka marka la bilaabayo in la dul istaago oo ah al-mabahith al-usuliyya al-muta'alliqa bil-basmala bisinka sidaad garanaysaan hadalka laga hadla aad buu u farabadaya fanni walbana marka la gelayo waxay yiraahdaan culimadu waxa munaasib ah masaa'isha xiriirka la leh fannigaas ee ku tacalluqda basmalada in laga hadlo ayaa munaasib oo markii midalan naxwaha kale ayaa lagu yaqaanaa markii la bilaabayo bisinka iyo masaa'isha naxwada la xiriirta iyo i'raabaadkiisa iyo si fiican baa loo galaa laakiin fiqiga caado uma lihin markii la gelayo masaa'isha fiqiga la xiriirta usulkiyo sidoo kale caado loo mala maca dalika waa masaa'il mawjuuda waxaan ku bilaabi doonaa marka basmalada masaa'isha usuliga ee la xiriirta taa marka si guud qofku inuu u fahmo iyo bisinkan masaa'isha usulka ee ku tacalluqaysa inay badan tahay meelaha ay kala galayso si guud buu qofku u fahmi doonaa kabacdina waxaan gali doonaa muqaddimada kitaabka iyo masaa'ishiisa insha Allah ta'ala maanta darsigeedu halka ha noogu joogo Allahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in